بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته داوديال ميرل بو عالم كاد كجوجتان كنا سو دوادا برنامج gaar aan ku falanqeyn doono iscaasilaadii gudoomiyihii baarlamaanka Soomaaliya Professor Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari oo shalay iska casilay xilkii gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya barnaamijka waxaanu ku eegi doonaa sababta keentay in waqtigan xilligan la joogo uu iscasilo gudoomiyihii baarlamaanka Soomaaliya maxaase laga filan karaa gudoomiyaha xiga ee baarlamaanka Soomaaliya barnaamijka waxa ay la qayb galaya oo ila falanqeynaya علي عبدي محمد جيلي iyo Cabdiraxmaan Nuur Cali oo loo yaqaano si naxariis leh waxay falanqeeyaan arimaha siyaasadda Soomaaliya ku soo dhawaada barnaamijka Abdullah Cali adigan kugu bilaabaya Jawaari hore wuxuu u sheegay inuu is casileyn oo xilkan uu san iska casileyn maxay tahay sababta iminka ku soo aadisay inuu xilka iska casilo Bismillahir Rahmanir Rahim marka hore waan salaamaya Som Cable TV iyo dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogaan marka labaad su'aashaada haddaan u soo gudbo waxa weeye waxa la dhihi karaa horta marka hore markaan dhinac ka fiiriyo waxaan oran karaa waa culays magaalada maalmihii ugu dambeysay haystay ama in muddo ku dhow bil ayaa ka degay wadooyinka xirnaa dadkii isu gudbi waayay iyo dhibaatooyin fara badan xagga dhaqaalaha ka soo gaaray ummadda shacabka Soomaaliyeed ee magaalada Muqdisho ku nool ayaa ka degay dhinaca kalena markaan ka eego waxaan dhihi karaa waa dhibaato iyo afduub وقالي شرعي الدستوركي إسعاسلادة قدوميها برلمانك الصومالي وإسكاسلي قدوميه برلمانك الصومالي وإسكاسلي شقدي وحصود الدشي قدوميه مدة بالكله أيو كوات كيسني إنه سحلك كده جين مدة كلا بتشر صدق شر وشير شر أيضا قبتي أيو وحو نوش يا محمد الصومالي دوش يا إنه سن شرعيات أهين وحلقات البنية إنه إسكاسله وشرع كوي من الإسلام مركان وشرع سي شرعي كجتي كرو shaqada marka waxaan dhihi karaa soo iscaasilaadda waxa soo dedejiyay culays siyaasadeed pressure siyaasadeed oo muddooyinkii ugu dambeysay la saaray gudoomiyaha ayaa soo dedejisay iscaasilaadda uu iscaasilay Cabdiraxmaan adiga dhankaaga maxay tahay sababta waqtigan ku aadisay horowda u sheegay gudoomiyaha inuu xilka ku degayay oo si iscaasilay ilaa xildhibaanada baarlamaanka xilka uga qaadaan ma waxa la dhihi karaa dhan culayska uga yimid dawladda federaalka ama madaxda ugu sareysa dalka sidaas ayuu isku casilay Bismillahir Rahmanir Rahim horta marka hore waa ku mahadsantahay barnaamijkaaga sharafta leh ee aad nagu casuuntay aniga iyo walaalkay Cali waxaan mahad iska leh Ilaahay subhanahu wa ta'ala Allah soo soo waafajiyay inaan ka soo qayb galno barnaamijkan qaaska ah ee sharafta badan oo ay Somali Cable inoo soo diyaarisay TV-ga caalamiga ah xaruntiisa Nairobi waxaan rabaa horta inaan is xasuusino xaqiiqdii iscaasilaadda waxa ka muhiimsanay badbaadadii qaran ee dhacday waan ogsoonahay baarlamaanka waxa ka dhacay wax aad iyo aad u fulxun dagaal waxa qarqar la isugu istaagay inay dhibaato badan iyo in la isku diyaarsado sidii hogaamiye kooxeedyadii hore in dib la isugu noqdo la isku hub diyaarsado in la isku diyaarsado maxaa la yiraahdaa haddii aad tayda yeeli weysid ama aan taada yeeli waayo maxaa dhici kara laba habeen aniga ma seexan in isma galinin sababtu waxay ahayd inaan aad ugu walwalsanaa mustaqbalka aayaha Soomaaliyeed iyo mustaqbalka jiilka soo koraya intuu ku dambeyn doona waayo boqolkiiba 99 hami baa nooga jiray dawladdan hadda aasaasantay ee curatay waxa hami noogu jiray ma garanaysaa qaabkii wanaagsanaa ee halkii sano ay soo wada shaqeeyeen oo ma garanaysaa aanan isqabqabsi lahayn isku soo wada duubo iyadoo marxaladii cakirantay meesha ogeyd gaartay arintii cirka ku shareertay dhibaato iyo isqabqabsi badan kadib inay suuragal noqoto inuu ogolaado Maxamed Ismaan Jawaari waxay la mid tahay bishimihiisaas iyo afkiisaas inta u dhaxayso boqolaal kun oo Soomaaliyeed iyo boqolaal xildhibaano ah dhiigoodii bishimihiisa iyo afkiisii anoo taa uga gol leeyahay haddii uu dhihi lahaa isma casilayo maxaa dhalan lahaa marka waa go'aan geesinimo leh waa go'aan sharaf ah
waa go-aan qofka markuu dowladda inta tago responsibility-ga ama mas-uuliyadda uu u qaado qofka shacabka ah waa inuu ilaaliyaa xalka halkee ku jirtaa. haddii xalka ilaahay soo geliyo bishmahaga dhexdooda inaad ku hadasho waa inaad ugu hiilisaa oo aad tiraahdaa haddiiba madaxayga wax ku badbaadayo, haddii madaxayga uusan dhiig u dhacaynin. laakiin 27 maalin gudahood waxaa jiray mooshinkaas soo socday. gudoomiye hore wuxuu u sheegay inuunan iska casilin xilkan. maxay tahay markaa horta adduunyada waxaa ka jirta wax la yiraahdo competition ama tartan. tartan hadduu dhaco dadku way isku booteeyaan. adduunyada waxaa ka jirta siyaasad oo gadasho ah, siyaasad af ah iyo siyaasad booloxofteyna. awoodda aad leedahay, awoodda aan leeyahay, awoodda cali uu leeyahay waa in la gorgortamaa, waa inaad banaanka dhigataa. markaad aragto waxa adiga aad ogoshahay ama kuu goysa inaad samayso, markay ku soo cadaato go-aan qaadashada raganimada aday kugu xiran tahay. laakiin inta ka horeysa inaad fududaysato, inaad jileec samayso iyo inaad go-aankaaga degdeg uga orodo waxaa ka fiican adoonan dagaal samayn, adoonan qalalaasi isqabsi samayn. miisaaniyadda aad ku dhagantahay hadday tahay mid mustaqbalka aayaha dalka dadka iyo diinta dan u ah waa inaad ku adkaysataa ilaa ma aad aragto haddii aysan cuntamaynin. xaqiiqda markaan soo qaato ma rabin faahfaahin dheeraad inaan galo. xaqiiqda markaan soo qaato maxamed cismaan jawaari waa nin aqoon-yahan, waa oday Soomaaliyeed, waa nin mujtamaca Soomaaliyeed dhexdiisa sharaf ku leh, waa nin shaqayn kara. laakiin su'aalaa taalo waaqiciga hadda taagan nin la qabsan kara ma yahay? su-aasha la rabay in la isweydiiyaa taas ah. laakiin in muddo soo shaqaynayay hadii markay hadda inuu soo shaqeeyo waaqiciyada isbedel waaye. xilliga xasan sheekh maxamuud madaxweynihii hore Soomaaliya ilaahay wuu u suurageliyey marxaladaas taagan inuu la shaqeeyo soo gudbiyo. tan hadda taagan hal sano soo shaqeeyey. waqtiga waxaa laga xukumaa dhanka sare, dhulka lagama xukumo. wixii dhanka sare ka dhaca dhulka ka dhaca. haddii ay xagga alle xaggiisa intaa uga ekay si sharafa hadda isku keenay, waan bogaadinayaa. kulanka uu berri qaban doonana uu baarlamaanka hortiisa rabo inuu ka soo jeediyana waxaan ka filayaa mid ayaha dalka iyo dadka iyo diintaba dan u ah. waa mahadsantahay cali. sida hadalkiisa oo maqnaysay cabdiraxmaan wuxuu sheegay in waqtigan inuu gudoomiyihii ay ka daba tagtay. gudoomiyuhu wuxuu sheegay isagii madaxweynaha shir ay qabteen inuu ka raali gelinayo shacabka Soomaaliyeed dhibaatadii ama khilaafkii siyaasadeed ee maalmahan jiray. maxay tahay sababta la isdhihi karo culeys way u saarayaan madaxda ugu sareysa dalka gudoomiyaha baarlamaanka? waa mahadsan tahay. horta waxaa fiican marka hore inaan taariikhda mooshinkan dib aan u yara xusuusanno. mooshinka sida uu ku yimid haddii aad eegto waxa weeye si sharci darro ah mooshin kaga yimid meel kaleeto oo aan golaha baarlamaanka dhexdiisa laga curinin. golihii baarlamaankana influence ama saameyn lagu sameeyey ayuu ku yimid markii horeeto. gudoomiyuhu ilaa hadda madaxda qaranka ama gudoomiyaha lama yaqaano sababta kaliya waxaan ka ahayn ma wada shaqayn karno. sabab kale lama yaqaano. markii la eego dhinaca sharciga ma noqonayso ma wada shaqayn karno wax lagu doodi karo oo miis la soo saari karo. waxaa muhiim ahaan lahayd gudoomiyaha haddii ay jiraan sabab cadcad oo uu dembi ku galay in la cadeeyo oo ama baarlamaanka hortiisa laga cadeeyo ama maxkamaduhu ay soo cadeeyaan oo la waafajiyo sharciga waxa uu yahay. gudoomiyaha hadduu qalad galay dembi weyn loo qaban karo. kaliya waxaan arkaynaa markii aan saadaalino ee aan fiirfiirino waxyaabaha ka dhex jira kacaanka lama qabsan kartid, taasoo meel ka dhac ku ah sharciga iyo ummadda Soomaaliyeed intaba. sababtuna waxay tahay waa gudoomiye ku yimid si sharci ah lagu soo doortay. waa kaliya marka la eego xubinta ugu muhiimsan dadka la doortay isaga iyo madaxweynaha. inta kale oo dhammaantood waxay ku yimaadeen magacaabis. marka haddii mar laga dilo meeshii ugu weyneed sharciga ahayd, macnaheedu wuxuu yahay in la afduubay uu god ku dhacay aan ka soo noqosho lahayn sida aan qiyaasayno sharcigii. waxyaabaha la rabo in la sameeyana ay tahay in koox iyadu isku koobta maamulka iyo xukunka ay meeshii timaado. waxaa kuu cad walaal markaad dib u eegto arrimaha mooshinka iyo sidii ugu dhacay iyo pressureka gudoomiyaha lagu hayay maalmihii lasoo dhaafay iyo hadaladii ay isdhaafsanayeen xildhibaanada labada garab. waxaa kuu soo baxaysa inay jirto koox meesha iskale iyadu oo daha gadaashiisa ka maamulaysa. marka aad fiiriso gudoomiye ku-xigeenkii gudoomiyaha baarlamaanka ayaa wuxuu sheegtay kusimaha asoo gudoomiyihii weli si sharciga uu ku fadhiyo meesha kusimaha gudoomiyaha baarlamaanka
qaladaadkaas oo dhan marka la eego waxa cumuub marka la isku soo duubo waxa meesha ka jira koox iyadu iskala meesha daaha gadaashiisa ka maamulaysa ciddii ay u aragto inaysan la jaan qaadi karin waxa ajandahoodu uu yahayna si fudud meesha looga saarayo marka waxaan la dhihi karaa marka la eego sharcigii oo la afduubay oo la rabo in wax allaale iyo wixii la rabo dalka lagu maamulo marka ka bacdi gudoomiyuhu marka muxuu u qaaday waayay in cod loo qaado ma kalsooni darro dhankiisa ayaa jirtay maya lama dhihi karo gudoomiyuhu muddo 3 jeer ayuu wuxuu ku celiyay inuu diyaar u yahay in codka lagu kala baxo hase yeeshee madaxda qaranka ayaa madaxweynuhu ugu horeeyay ayaa waxay diideen inay geeyaan sanduuqii codka la geeyay gudoomiyaha xaruntii baarlamaanka hadda ogtahay waa la qabsaday ciidamada lagu qabsaday gudoomiyaha iyo garabkii xildhibaanada la socda waxay codsadeen meel ka baxsan meeshan in la geeyo dabadeedna codka loo qaado gudoomiyaha hadduu codka waayo marka xildhibaanada inta badan uu waayo gudoomiyaha iska tago haddii uu helana uu sii joogo madaxda qaranku marnaba way diiday midda inay aqbalaan marka gudoomiyaha xaqiisa marnaba kama ayna soconin mar walba pressureka inuu gudoomiyaha meesha ka tago xalaal iyo xaaraanba waxay ka socotay dhinaca madaxda qaranka ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynaha walaalkay aan isleeyahay aad la wadaagtid si tuunka igu jira inuu meesha iga baxo su-aashu waxay tahay oo aan isleeyahay yacni waxaad sheegtay inaad tiri kacaanka lama qabsan karo ereygaasna waxaan dareemayaa erayo xanaf ku jira ah oo laga dareemayay dadka markaa ay saxaadooda kacsanaydoo u isticmaalaya dowladda si gaara laakiin markaan soo jeesano ee aan fiirino waxa meesha laisku haysto waa sharci iyo qaanuun iyo qaabka waddanka loo wadi lahaa qaabka waddanka loo wadi lahaa iyo sharciga qaanuunka markii la eego dowlada kastaba oo Soomaaliya dhalata markii la soo gudbo dagaaladii kadib oo maxaa la yiraahdaa burburkii Soomaaliya intii ku jirtay 27 sano 28 sano ee lagu jiray dhexdooda ma dhicin waa markii ugu horeysay gudoomiye baarlamaan la siibo xilka laga qaado iyagoo ay dhisan yihiin madaxweyne iyo ra'iisul wasaare okay aan isweydiino arrintan hadda soo cusboonaatay ee dhalatay sababta ka dambaysa maxay tahay sababta ka dambaysa waxaa la dhihi karaa waan saadaalin karnaa dowladdu waxay u qaybsan tahay guddi fulineed iyo guddi dejineed guddiga fulinta waa ra'iisul wasaaraha iyo xukuumaddiisa iyo guddiga dejintana waa baarlamaanka iyo xubin iyo xildhibaanada iyo xubnahoodii waay guddiga dejinta marka waxa meeshan loo baahan yahay waxay tahay dalkan 27 sano burbur ku soo jiray dhibaato ku soo jiray kumeel gaarkii baa laga soo saaray ayadoo kumeel gaarkii laga soo saaray baa haddana wali dadkiisa ay u dhaqmayaan iyo shuruucdii iyo dhaqankii iyo dawladda qaabkii u shaqeynaysa wali kumeel gaar u shaqeynayso markii la fiiriyo laakiin magac ahaan iyo international ahaan markii loo fiiriyo waxaan noqonay dad federaal kumeel gaarkii ka baxay markii la isweydiiyay marka asbaabtan ah in aan kumeel gaarka laga bixin maxaa sababay inuu dastuurka ay la jaan qaadi waayaan in ay ka hadli waayaan xildhibaanada nin kastoo xildhibaana laakiin soo lama dhihi karo fowdada waa xildhibaanada maadaama gudoomiyihii hore xildhibaan ma arkaysid ka doodaya constitutionka Soomaaliya waa kana article hebel ama qodob hebel markaan fiiriyo farqadiisa markaan fiiriyo tuducdu ku fadhiyo markaan fiiriyo number hebel markaan fiiriyo ba iyo ta iyo ja markaan u fiiriyo waxaa wadanka ama dadka ama dalka ama diinta dhib ku ah inuu qodobkaas ku sii jiro constitutionka kama arkaysid asagoon constitutionka xildhibaankii soo akhrinin ma magacaabay xildhibaanku yahay wuxuu rabaa noqo asagoon xildhibaankii constitutionka soo akhrinin asagoonan daraasaad ku sameynin constitutionka asagoonan ku soo zaa'idin xeer dhaqameed wadanka horumar u ah wuxuu diyaar u yahay inuu hore ka bilaabo dagaalkii uu ku qaadi lahaa sidii ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynaha uu u kala dhexgali lahaa ama madaxweynihii loo ridi lahaa ama ra'iisul wasaarihii loo ridi laakiin fursad ma bala siinba soo maahan xildhibaanada maadaama ay mar walba isqabsadaan xukuumadda keenayo waxay taas waxaan ku keenayo waxay tahay 27 sano dhaqan caadaysanay bay ahayd hatta xildhibaanka markuu isa soo sharaxayo waa la maalgeliyaa dhaqaale wuxuu ku soo galaa ama kursigaas uu ku helaa lacag fara badan ilaa iyo $90,000 ilaa iyo $100,000 lacag gaarayso معين لو ما هاي marka dantooda ma fiirsana danta dalka ma fiirinaya dantooda fiirsanaya dalka ma fiirinayaan waxa ay arrinka iyo mustaqbalkooda ay ka bilaabayaan kursigan waxa ay ku soo koreen ama sabarloogoodii bay waxay soo dhigteen
dad ganacsato ah lacagtaasi ka soo qaadanayaan campaign-keena ku soo galayaan madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha isku aadinayaan waxay ka faa'iideysanayaan okay golihii dejinta muxuu ka qayb gali waayay shuruucdiisii ka adkaa waayay golihii fulinta muxuu sameeyay golihii fulinta wuxuu sameeyay waxyaabihii laga rabay agabkii hoosuu ka soo bilaabay muxuu ka soo bilaabay in wasaaradihii la dayactiro in dadka wasaaradaha ka shaqeynaya la filtreeyo dad baa waxaa jiray ma garanaysaa iyagoo dhintay magacoodii lagu qaadanayay sida Bayle uu sheegay wasiirka maaliyadda sidoo sheegay dad dhintay baa dhaqaalahoodii waxa loo qaadanayay inay nool yihiin kaararkii la casriyay bangiga dhexe oo awood la siiyay inuu shaqeeyo qofka dawladda u shaqeeyo inuu bangiga dhexe intuu tago oo suul fartiisa saxiixa wixiisii ku qaato in shaqadii golaha fulinta waxay sameeyeen wax qabadkii loo baahnaa laakiin arintaas waa musuqmaasuqa wax yar Cabdiraxmaan aan ka dhaxgalo waa ku yara dheeraaday waxaan rabaa horta inaan Cabdiraxmaan xusuusiyo arrimaha baarlamaanku uu xil saaran yahay waa sharci dejin arrimaha xukuumadda ay u xil saaran tahana waa shaqadii wadanka la rabay in la qabto waxaa jira 3 hay'adood oo kala madax bannaan ayaa jira meeshan oo la rabo si kala duwan oo kala madax bannaan inay u shaqeeyaan oo baarlamaanka xukuumadda oo madaxweynuhu uu horjoogo u yahay iyo maxkamadii sare ay ugu sareyso maxkamadii sare iyo maxkamadihii maba jiraan mana la dhiso xukuumadihii kala dambeeyay oo dhanna mayna shaqeynaynin waxaa soo haray labadan hay'adood xukuumadda iyo ama golaha fulinta loo yaqaano iyo golaha sharci dejinta baarlamaan shaqadoodu way kala duwan tahay marnaba wax isku qasanmaan waxa loo baahan yahay in la ogaado waxay tahay baarlamaanku shaqooyinka uu qabto waxa ugu waaweyn inuu isagu sharci curiyo ama sharci dhinaca xukuumadda uu kaga yimaado intuu ka doodo inuu markaa baasgareeyo ama uu diido waa shaqooyinka ugu waaweyn baarlamaanka waqti ilaa hadda Cabdiraxmaan ama qolo kale noo sheegi karta hal sano bari xukuumaddu jirtaa sharci ay hor keentay baarlamaanka oo socon waayay ayaan doonaynaa su'aasha inaan weydiiyo Cabdiraxmaan wadafa ay yihiinba sharciyo inta xukuumaddu soo baasgareysay inta soo marisay sharciyo waaweyn oo hadda la dhihi karo baarlamaanka diiday oo hawlgab uu sida ku noqdo baarlamaan yaan rabnaa in loo sheego shaqadii baarlamaanka waxa kamida inuu korjoogtay xukuumaddu maxay qabatay tusaale ahaan dastuurku uu ka dhawaajiyay walaalka Cabdiraxmaan wasaarad baa jirta leeyahay wasaaradda dastuurka wasaaraddaas baa waxay u xil saaran tahay inay falaqayso la fagurto oo ay ka shaqeyso dabadina baarlamaanka gadaal ugu soo celiso shaqadii wasaaradda shaqay bilow ay qabataan ogeyn laakiin ilaa hadda waxay baarlamaanka ku soo celisay oo baarlamaanku u diiday ma jiro waxyaabaha wasaaradaha qaybaheeda kala duwan ay ka mataqaanaa ay qaban waayeen ayaa loo baahan yahay inuu baarlamaanku korjoogtay markii la ogaaday in baarlamaanku ku soo socdo oo inuu korjoogtay ay taana waxa asagiiba waxa lagu sameeyay faragelin oo in la kala diro baarlamaanka golihii baarlamaanka markii la ogaaday inay u soo socdaan in xukuumadda la xisaabtamaan ra'iisul wasaarihii iyo wasiirada iyo dhamaantood in la xisaabtamaan ayaa waxa lagu sameeyay faragelin dib loogu noqday golihii baarlamaanka Cabdiraxmaan wuxuu yiri waa markii ugu horeysay gudoomiye baarlamaan xilka laga qaado waxaan dhihi lahaa ma ahan 2009 hadaan dib ugu noqono taariikhda Sheekh Aadan Madoobe ayaa ahaa gudoomiyaha baarlamaan waxaa jiray xilkii baa laga qaaday isla Shariif Xasan ayaa noqday gudoomiyaha baarlamaanka oo laakiin waxaa jirta taariikh mudan in la xuso oo ah madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya mar walba wuxuu taariikh u leeyahay markaan tan ku darno inay baarlamaanka isqabsadeen 2011 golihii baarlamaanka isqabsadeen oo isaga ku baxay haddana in muddo ah ayay wax is haysteen golihii baarlamaanka mana u malaynayo sida uu hadda wax ku wado madaxweynaha inay shaqayn doonto oo mala awaalka ah inuu meesha yimaado gudoomiye baarlamaan oo isaga iyo xukuumadda inta la soo maaragtay gadaal laga soo reex meesha la keeno inay socon doonto uma malaynayo marka isku soo wada duub marka fiirisid waxyaabaha iyo shaqooyinka dhacaya waa shaqooyin ka socda dhinaca golaha laanta fulinta dibna ugu foorara golihii sharciga ahaa ee sharci dejinta ee iyagu ka yimaadeen marka waa sharci jabay oo aan lahayn marmarsiyo iyo meelo dambe dib loogu noqdo oo inuu golaha baarlamaanku asagu fadhiid noqday maxay tahay marka sababta isu qabsanayaan maadaama ay kala shaqo yihiin xukuumadda iyo baarlamaanka ay kala shaqo yihiin maxay tahay sababta isu qabsanayaan mar walba aad iyo aad waxaan oran karaa waxa weeye meesha waxaan oolin inkastoo aan nahay dawlad kamid ah dawladaha afrikaankuna uusan sharciga dhowrin inta badan waxaa la oran karaa sharcigii oo lagu tumanayo ayaa sababaya iyo qodobo ku jira dastuurka laftooda oo aan kala xadidaynin si weyn u kala xadidaynin isku dhex qasan ayaa sabab ah
mar walba laanta fulintu ama madaxweynaha ha noqdo oo ugu sareeya ama ha noqdo ra'iisul wasaaraha iyo wasiiradooda waxay doonayaan inay shaqadii ay gabeen aan lagu maamulin oo lagu korjoogteen sidaa darteed waxay dib u farageliyaan baarlamaanka laftiisu marmar ayaa laga yaabaa inuu isaguna ay ka timaado caqabada xaggiisa marka waxaa la oran karaa sharci meeshan lagu kala baxo iyo maxkamadii sare ee dhexgeli lahayd markay isqabtaan ee aan jirin ayaa sabab u ah saldhigga ugu weyn waxyaabaha sababta waa waxaas madaxda ugu sareysa inta badan waxay isqabtaan xukuumadda rag ka tirsan oo siyaasiyiin oo magac ku leh Soomaaliya gudoomiye Jawaari ma ahayn qofkii ugu horeeyay oo ku baxay iska qabsi siyaasadeed maxay tahay sababta mar walba hadii ay dawladda ay isqabtaan siyaasi ama qof xilka haya Soomaaliya mar walba daaqada looga saaro xilka laga qaado dibaatada waxa meesha keenaysa waxay tahay principle-ka lagu soo galay dawladda waxay ahayd principle aan anshax iyo sharaf iyo wanaag iyo siyaasad intaba ahayn principle-ka dawladda lagu soo galaa waxay tahay xeer jajab aan ku salaysnayn dastuur Soomaaliyeed laakiin siyaasiyiin aqoon-yahano oo kamid aha oo hadda xilalka laga qaadaa ku jiraan aqoon-yahanadu qasab ma aha xeerka hagaya qasab ah xeerka hagaya wuxuu yahay adiga shaqada iyo kursiga aad ku fadhiso dastuuri miya okay waan kaaga jawaabaya aqoon ahaan kuma haboona inuu qofka sida u falanqeeyo laakiin waxa meesha yaala way ku haboon tahay inaad u sheegto Jawaari waxa uu meesha u fadhiyo waxa waaye markii xeer jajabka Soomaaliyeed 25 sano burburka jiray ee soo dhaqan galay waa rubac qarni soo dhaqan galay ee lagu dhaqmaaya waxay tahay inuu beel u fadhiyo kursigaas laakiin beel markii laga tago waa nin sharci yaqaan oo loo baahan yahay Soomaaliya oo dhan ay u baahan tahay sida madaxweynuhu hadda uu sheegay waa ninka loo baahan yahay 50 sano jir waay waa nin sharciga si fiican u yaqaan ogow marka qofka meesha uu ku soo galay principle-ka uu ku soo galay waxa waaye principle aanan dastuuri ahayn shaqada markii la qaybsanayo hawsha la wadaayana asaliyan waxa loo fiirinayo waxay tahay dadka hadlay iyo oday dhaqameedyada waalan ee aanan ka fakan karin dadkii wax dhaqaajin lahaa gaariyaashii lugaha kala baxaya jidkana jidgooyo u dhigaya si odayaasha aysan jidgooyo u dhigin oo jidgooyada uga badbaadaan waxaa la keenayaa wiilkooda ay ku qanacsan yihiin 10 sano u dambeeyay ilbaxnimaana soo galaysay oo asagoo qofkii qabiilkiisii matalayay loo eegayo qofka ugu aqoonta badnaa ee qabiilka u matalayay xogaa waxaa naga sii durqaysay in ku sii adkaano ku sii meel adakaano qabyaaladii laakiin weli sunay nagu noqoto jirkeenu ku jirtaa laakiin ninka la yiraahdo Cabdiraxmaan waxa weeyaan marka laga soo tago hab qaybsiga Soomaalida waxa qaybsata hadda heshiiska lagu yahay markuu qofku yimaado uu ka soo galo golaha baarlamaanka soo galo ama wasiir noqdo ama madaxweyne noqdo positionka uu taagan yahay waa position heer qaran ah marnaba in dib loogu noqdo ilama ahan meesha uu ka yimid waxa muhiimka waxa weeye su'aashadii ahayd muxuu madaxdu markay isqabato madaxda sarena u hartaa qolooyinka ka hooseeyana u baxan mar walba waa midan hadaayad ku sheegaya waxa meesha ku jira koox iyadu hawsha underground ka qaadna laakiin bisu dhiga hoose maxay tahay in kooxdaas ay isku salayso iyadoo ay jiridka ku haysato quwad aanan ahayn dastuuri maxaa sababay waa midan soo wada waxa weeyaan kooxdaas waxay gacanta ku haysaa hay-addii laanta fulinta ciidamadii iyo maaliyadii waddanka gacanta ku haysa qofka marka waxaa lagu samaynayaa dhaqaalihii waddanka loo isticmaalayaa in lagu rido awoodii military ee ciidana waa loo isticmaalaya marka qofka markuu fiiriyo sida hadda gudoomiye Jawaari ku dhacday markuu fiiriyo meelo fara badan uu ka eego ayuu wuxuu ogaanayaa wuxuu isku qancinayaa inuusan meesha sii haysan karin waxay danta ku kalifaysaa markii pressure siyaasadeed la saaro markii pressure ciidan la saaro markii pressure dhaqaale la saaro wuxuu danta ku kalifaysaa inuu meesha iskaga tago sida dhammaan soo dhacday gudoomiye gobolka Banaadir aad eegto oo ah ninka caanka ka tirsan laakiin maamaha waxa jirta ama kalimad hal ku dhig waxa jirta ay Francisco isticmaalaan oo la yiraahdo kacaanku in cuna si uu isagu u badbaado mararka qaar kood waxa jirta xayawaanaadka qaar baa waxay sameeyaan ilmahooda ay cunaan si ayagu u badbaadaan
marka dhaqanka meesha ka jira waa dhaqan noocaas oo kaleeta waxay isku badbaadinayaan ayagu siday u badbaadaan eedda ayagu ay leeyihiin madaxda qaranku oo fashilka siyaasadeed iyo fashilka waxqabad ay ku yimid si ay u badbaadiyaan ay waxay sameeyeen qaybo ayaga kamid ay meesha ka saarayaan si in muddo loogu doodo la yiraahdo sidaan caaw ka doodayno kaleetaba ra'yul caamka lagu qaldo la yiraahdo hebel baa meesha ka baxay hebel ayaga waxba ay soo kordhinay taas marka waa arrinka isqabadka markii madaxdu isqabato qolada hoose madaxda qaranka meesha ku harto qolada hoosena ay baxdo waxa keenaya dhaqaalihii wadanka oo loo isticmaalayo hadda xamar wareysato dadka goobjoogayaasha ama siyaasadda u dhown daloola waxa ay ku sheegayaan musuqmaasuqu meesha ka socda hantidii qaranka la isticmaalayo wax la soo koobi kara ma marka mar walba taas salka ku haysa maxay tahay marka xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya ay hal dhinac ugu bataan oo ay noqdaan in hadda oo kale sidoo kale hadda waxa jirta in laba dhinac ay kala safnaayeen hadda ay kala qaybsameen maxay tahay marka sababta mar walba xildhibaanada loo adeegsado xildhibaanadu hal fikir baan ka mideysanahay saaxiibka Cabdiraxmaan waa fikirka ah in xildhibaanadu meesha ku yimaadeen dhaqaale badan oo ay soo bixiyeen iyo dadaal aad u fara badan mid xildhibaanada kamid hadda kor idaacad la hadlaya wuxuu ku yiri wariyihii wareysanay waxaan kaaga yaabay ma fahamtid deymaha lagu leeyahay xildhibaanada meesha ay ka bixiyaan taas uu la jeeday mooshinada la soo curiyo way lacag dhaqaale ka helaan marka mar walba waxay xildhibaanadu eegayaan halkee dhaqaale ka heli kartaa priority-ga koobaad ilaa priority-ga waa taas haddii u fahmaan dhinaca xukuumadda iyo madaxweynaha inuu dhaqaalihii jiro boqolkiiba in ka badan 60-70 ayaa dhinacaas maraysa dhinaca haddii u fahmaan dhinaca kaleeta gudoomiyaha tusaale ahaan waa tusaale aan soo qaadanayna mar walba laakiin isqabadka meesha ay u fahmaan inuu dhaqaaluhu ku xoog badan yahay ayay xildhibaanadu u bataan waana midda keenaysa inay kala qaybsamaan mar walba oo tiisii aad arkayno kaleeto ay u kala qaybsameen marka waxay salka ku hayaan dhaqaalu ku hayaa ujeedada xildhibaanadu dhaqaalay salka ku hayaan Cabdiraxmaan aadan ku soo laabanaya maxay tahay xildhibaanada sharciyada sababta ay uga shaqeyn leeyihiin oo mashaariicda kale oo hor yaala baarlamaanka oo kale oo dawladda federaalka ay soo hordhigtay sababta ay uga shaqeyn leeyihiin maxay tahay mar walba sababta ay u daba dhigtaan arrimaha mooshinka oo kale sababta ay u daba dhigtaan wax kale maaha xildhibaanadu ilaha dhaqaale meesha ay ka soo geli kartaa waxay tahay inay mooshin raadiyaan in ay mooshin raadiyaan fiiri markii hadda cashuurta la dhahayay VAT markii la qaadayay la rabay in laga hadlo VAT in cashuurta dalka sicir korinta lagu sameynayo markii laga hadlayay xildhibaan waliba wuxuu joogay ama Dubai ama Ingiriiska ama Nairobi meelahaas ku maqnaa xildhibaan yimid ee dhaqaalahaasi si wadanka loo sarakiciyo qiimihii la soo galo waayo annagu sharaf inoo ma ahan markastaba inaan dawarsi shisheeye u tagno inaan tuugsano waxa danno ah waxay tahay ninka aad u tagaysid dhaqaalaha aad weydiinaysid canshuur uu iska aruuriyay buu kugu siinayaa canshuur oo asaga iska aruuriyay buu isku maamulayaa canshuurta annaga iska aruurin lahayn aan isku maamuli lahayn xildhibaan ma jira ka hadlaya VAT ha lagu kordhiyo dhaqaalihii si aan u helno mashruucaad aan ku xakamayno dawladii xildhibaan ka doodaya ama ka hadlaya ma arkaysid mooshinka markii la dhaho haddii ay yihiin 275 ama 274 ama 271 tirada xildhibaan maalintaas waxaad ogaanaysaa ama aad arkaysaa in xildhibaanada kulligood ay soo wada xaadirayaan sababtu maxay tahay gorgortan siyaasadeed aad bilaabanayo asxaab baa bilaabanayso ra'yigan baa wataa igu raac dhaqaalahan aad kugu siiyaa bilaabanayso aniga iyo cali geelaan laba kala noqonayno aniga waxaan taageersanahay in aan systemkaas wax ku hago asagana wuxuu taageersan yahay inuu systemkaas wax ku hago anigii systemkan aan wax ku hagayo waxaan wataa $1 milyan oo ku hagaya haddii systemkan aad qaadatid cali wuxuu wataa $2 milyan oo uu haddii mashruuciisii la ogolaado uu ku qaabilo deyntii la igu lahaa ee kursigan aan kusoo fadhiistay sideen u gudi karaa haddii aanan kasoo qayb gelin isjiidjiidkaas iyo kala kooxaysigaas haddaanan cid raacin ama aanan cid u olanaynin danta aan u samayn karo inaan dhaqaalihii deyntii soo qaatay ama sabarloogii guriga aan dhigtay lacagtii aan ku soo celi lahaa meesha kuma jirto dadisay waxay noqotay ilaha kaliya la fiiriyo waa mooshin noqotay mooshinkuna ma aha mooshinku adduunku wuxuu yahay shay wax dhisa
ee habaabiya dowladana tabar u noqda laakiin mooshinka Soomaaliyeed marka fiirisid waa mooshin sal ku haya kusoo laabanaya loo helaa intaas aan u gudubno marka iscasilaadii gudoomiyaha baarlamaanka maxaa laga filan karaa cali gudoomiyihii uu iscasilay waxaa la filayaa in gudoomiye cusub la magacaabo maxaa laga filan karaa gudoomiyaha cusub ee soo socda maxaa soo horyaala waxaan gudoomiyaha cusub ee la dooran doono Allah horta nooga dhiga mid ummadda iyo dalka badbaadiya dhowr arrimood ayaa laga dhex fahmi karaa gudoomiyaha cusub ee soo socda waa midda koobaad gudoomiyaha shaqada horta waa shaqo adag oo ah inuu baarlamaankii kala qaybsamo sida aadka u kala fogaaday oo dib u mideeyo waa qodobka labaad oo waxa la doonayaa inuu sii wado sharciyadii iyo hawlihii baarlamaanka hor yaala hadayba jiraan oo la hor keenay inuu meesheedu ka sii wado oo u gaarsiiyo wadanka meesha loo socdo gudoomiyaha cusub waxaan dhihi karaa gudoomiyaha imaanaya muxuu noqon karaa waxaan dhihi karaa gudoomiyaha markaa fiirisid sababtii gudoomiyihii hore looga qaaday xilkii juhdigii la geliyay xukuumadda iyo madaxweynaha iyo dhammaan dawladda xataa ay soo ifbaxday laamihii amniga taliyaasha ciidamada oo ayaguna ka qayb ka amuushinkii socday marka la fiiriyo xildhibaanada intooda badan la soo kiciyey waxyaabahaas oo dhan marka la fiiriyo horta wuxuu noqon doonaa gudoomiye ay xukuumaddu gadaal ka soo riixday gudoomiyahaas oo nuuca loogu yeero luqadda ingiriiska la yidhaha callbox waxa la yidhaahdo uu noqon doono sidaan qiyaasayo sababtoo ah gudoomiye markii maxkamaddu xukuumaddu ay keento program ama sharciyo ay keento ayadu ay wado ay soo celisay marnaba aan dhihi doonin hala faaqido gacanta ha loo taaga baarlamaanka ku oran doono waa gudoomiye dhihi doona oran doona sidaan qiyaasayno lagama keeni karo xukuumadda ama madaxweynaha muddada intay ka dhamaysanayaan wax moshina ama xilka qaadis lagama keeni karo ama arrimahooda lagama hadli karo sidii dad badan goobjoogal ay noo cadeeyeen gudoomiye Jawaari waxyaabihii uu eersaday kamid aha warqado loo keenay oo la yiri saxiix oo ma gudoomiyaha ilaa ra'iisul wasaaraha ilaa ka dhamaada waqtigiisu oo xukuumaddu ay waqtigeeda dhamaysato aan 4 sano loogu talagalay dawladdu ay dhamaysato lagama keeni karo marnaba wax soo jeedin ah ama la xisaabtan marka gudoomiyuhu waa gudoomiye dabaqa siyaasadda xukuumaddu wadato ee aan u fiicnayn wadanka iyo dalka yani hadii ay labadii hay'adood sharciga ah xukuumaddii iyo baarlamaanka oo la xisaabtami lahaa ay isku dhinac maraan waxa meesha ka lumaya balance-gii iyo isla xisaabtankii marka waa gudoomiye noocaas cabdiraxmaan nala qabtaa cali sidoo sheegay gudoomiyaha cusub dhanka dawladda uu ka imaanaya uu leeyahay marka qaab noocee ay isla shaqeyn karaan hadii xitaa uu ka imaado gudoomiyuhu dhanka dawladda horta sidaan haday ku sheegay cali fikradaas oo ku kala duwanaa walaalkay sababtoo meeshaan istaraatiijiga yaallo A iyo B iyo C bay u kala qaybsan tahay dawladda Soomaaliya habqaybsigeeda habqaysigaas oo ku saabsan hadda labadan barin isku bedelaya habqays kooxeed ah laakiin wuxuu salka u jiraa qaab 4.5 ah horta marka koowaad wuxuu ku imaanayaa 4.5 sida hadda dastuurna ma aha laakiin xeer jajab la cadeystay in hadduu ra'iisul wasaare noqdo reer qansax in reer qurac ay noqdaan madaxweyne reer hebelna ay noqdaan gudoomiye baarlamaan waa xeer jajab annaga aan samaysanay aan isku dabaqnay qaabkii loo sameyn lahaa qaabkaas haddii hadda laga bedelo oo loo keeno nin aan positionki ninkan u buuxinaya ahayn ee la keeno nin ka duugan ee booska uu qabanayo horta isbedel bay noqonaysaa waa kow labo waxay noqonaysaa ninka imaanaya ma noqon karaa nin wada shaqaynta iyo la xisaabtanka sida ay u ogol yihiin guddiga fulinta ama hay-adda laanta fulinta ah ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynaha xukuumaddiisa ay ka mid yihiin soo tiima aan hadda uu ku baxay gudoomiye Jawaari kuma bixin waayo ra'yi ka dugan aan qabaa isla xisaabtanka meesha jira waxay tahay kaga baxay meesha haddii isla xisaabtan jirin ra'iisul wasaaraha intuu dadka hor yimaado ra'iisul wasaaruhu ilaa iminka kama hadlin arrintii mooshinka soo lama dhigi karo marka isaga gadaal ka riixay oo isla xisaabtanka diidan aan ku sheego hawsha isqabqabsi markii ay noqoto oo ay bahashu ay noqoto in la isdul qabsado shakhsi anaga ma ataagayno so personal attack personal attack wuxuu ka fiican yahay out of topic buu noqonayaa
laakiin si general ahaan markaan hadalkeena aan fiirino waxaan ku yidhi qodobka ugu muhiimsan la fiirin karo waxay tahay hadduu ka dugnaado 4.5 ninka la keenayo waa horumar iyo dhaqaaq la sameeyey number 1 number 2 waxay tahay hadduu ogolaado sida ay u ogol yihiin laanta fulinta in ay ogolaadeen la xisaabtankooda nin la xisaabtan ogol hadduu yahay sababtoo xan waxaa jirta ah in la isku haysto dastuurkii 60kan ku dabaqaynaa dastuurka aan qaadanayno maadaama aysan joogin Somaliland iyo dastuurka federaalkan hadda qaadanaynaa kumeelgaarkan ka bixinaynaa sidee suuragal u noqon kartaa hawshaas in la sameeyo xanta jirtaa waxay tahay xantaas okay marka waxaan rabaa qodobkeyga inaan dhameyn kadib cali aan jaaniska siiyo waxaan rabaa marka haddii taa ay tahay waxaan ka hadlayaa siyaabaha ugu muhiimsan ugu fiican ugu sharafta badan ee ninka lasoo dooranayo annaga aan iska dhex arki karno number 1 in horta meesha laga bixin karo xeer jajabka annaga aan caadaysanay ee aan kitaabna ahayn dastuurna ahayn ee annaga aan ku dhaqanno laakiin waa ku meel gaar weli ku meel gaar ha ahaado waxa aan ka hadlayay in laga baxa ku meel gaarkaas dhan ah kasoo dawladii way ka baxday laakiin institutionkii dalku ku dhaqmay laakiin waqti ay u baahan tahay soo ma fiicna marka in waqti la siiyo waqtiga la siinayo soo uma baahna haddii hadda aanan la siinin 4 sano ee soo socota ee ninka kala qabsan doona ma asaga jaanisiina suuragal ma noqonayso kullu yawmin huwa fi sha'n bu ilaahi subhanahu wa ta'ala ali waxa ilaha boon marka aan dhamaysto waxa ilaha boon qofka hadda meesha taagan waxay ku haboon tahay in hadda waxyaabaha muhiimka ah pointyada in inta la qabto la yiraahdo number 1 hadda point muhiim noo ah aan ka bilaabno gudubno waayahay waxaan horta ka hadlaynaa waa filashadeen iyo saadaasheena ma ahan wax sharci ku yaala oo hadda ka hor soo dhacay waxaan anagu hadda meeshiina masraxiina ma saarino waxba kama bedeli karno jaanis waxa uu haysta taas xildhibaanada iyo wasiirada iyo madaxda qaranka ee saaran waana qodobka ugu muhiimsan ee xukuumaddan loo xilsaaray inay gaarsiiso inay dastuurka wax ka bedesho qodobada waaweyn marar badan inaan meel kale ka sheega laga yaabo qodobada waaweyn xukuumaddan ay ahayd inay diiradda saarto waxaa ka mid ah inay dastuur ka bedesho oo ay dastuur ummaddaani isku halayn karto ay keento waxaa ka mid ah amniga waddanka inay raadiso oo ay boqolkiiba 80 ku dhow in ka yar boqolkiiba 20 bay hadda gacanta ku haysaa boqolkiiba 80 inay gaarsiiso waxaa ka mid ah doorasho 2021 marka la gaaro inay gaarsiiso doorasho qof iyo cod oo dawladii hore ay gaarsiin weyso waddanka dawladdu marka hadda ma muuqato horta inay dastuur wax ka bedelayso oo sidaa hadda uu yahay ayagana lagu soo doortay haddii la siiyo xoog la geliyo waa la samayn karaa laakiin ma muuqato oo waxay maraysaa dhaqaalihii waddanka iyo ummaddii in la cuuriyaamiyo muddo bil ku dhow ayadoo looga gol leeyahay in dana ayagu ay leeyihiin ay ku fushadaan markaan usoo laabto guddoomiyaha horta guddoomiyaha in meeshuu hadda ka baxay guddoomiyihii hore meel aan ahayn uu ka yimaado waxay noqonaysaa la yaab leh marka loo fiiriyo sida hadda wax u dhisayn sida wax ku socdaan inuu inta laga wareejiyo meel kale la geeyo aniga ma filayo kii unbaa meesha unbuu ka imaan doonaa guddoomiyahana laakiin guddoomiye noocee ah ayaa imaan sideeduu ku imaan doonaa ha hadduu meel kale inuu ka yimaado way jirtaa laakiin fursadaasi hadda ma furna waxaa laga yaabaa fursadaasi inay dhacdo 2021 marka la gaaro doorashada kale la gaaro laakiin tan hadda hore u dhacday waxa kamid ah inay hore u dhacdo wasiirka arrimaha dibadda waxa caado oo waxa wasiirada waxa laga hadlayaa wasiirada laakiin 10 sano u soo socotayba waxay caado u ahayd in reer qansax laakiin way ku laabatay Soomaaliya laakiin hadda kuma laabanin waa fursan weys mayo kuma laabanin isbedel dhacay sidee ma raba inaan magacaabo wasiirka arrimaha gudaha iyo arrimaha dibadda hadda ka hadlayso mayo wasiirka arrimaha gudaha iyo arrimaha dibadda kama hadlayo laakiin wasiirka arrimaha dibadda waxay ahayd baab gooni ah oo wasiirka arrimaha dibadda mar walba saddexda awood ee u sareysa marka la fiiriyo inay qaybtaas afraad ay soo galayso waan fahmaa laakiin waa weeyaan marka loo eego wasiirada dhexdooda si loo badbedelayo wasiirada waa waxay uu keenaa uu shakhsi uu keeno madaxweynaha marka meesha joogo hadda wasiirada marka la fiiriyo ay laftirkeeda gel marka loo dhaadhaco gudaha loo galo hadalkaada waxay ma raba inaan ka qabsado laakiin markii gudaha loo galo ay laftirkeeda soo ma noqon weynin in lagu qanci waayo positionka in la kala bedelo ee arrimaha gudaha iyo arrimaha dibadda la kala geeyo aan dhameeyo horta wasiirada markasta waxaa magacaaba madaxweynaha markaa meesha jooga laakiin guddoomiyaha baarlamaanku asal iyo gundhig wuxuu u yahay dhammaan dawladdan meesha ka jirta xukuumadda hadday noqoto hadday maxkamadda noqoto waa qofka ugu horeeya ee mas-uul heer sare ah ee lasoo dooranayo waa isaga marka sida heshiiska uu ahaa aniga ma filaya mar walba guddoomiyuhu inuu ka baxo meeshii uu ku jiray haddii ay dhacdo isku daygii la sameeyey uu dhacdo in laga bedelo
waxay noqon kartaa jaaniskaas inuu furan yahay marka doorasha ay furan tahay oo masrax lagu ciyaarayo gudoomiyaha waxaan ka hadlaynaa muhiimaddu waxay tahay nooca uu gudoomiyahaas noqon karo ma gudoomiye u ah raaciyad u ah xukuumadda iyo madaxda qaranka miyuu noqon doonaa mase gudoomiye ummadda ugu shaqeeya sidii laga rabay ayuu noqon doonaa muhiimaddu sidee suurtagal ugu tahay in hadda ay gudoomiye iyada hadalkeeda ku soconayo ay keensato maadaama xildhibaanadii ay hadda ay kala qaybsameen leeyahay xildhibaanadii mooshinkooda way kala go'een waxay kala raaceen musharaxiin u kala sharaxan gudoomiyaha baarlamaanka aad iyo aad waa horta waa qasab inay xildhibaanadu kala qaybsamayaan qolo hadda mooshinka taageersaneed ayaa waxay iman doontaa inay garabkii kale u timaado qolo garabkii kale ahayd oo mooshinka ka soo horjeedana dhinaca kale tagi doonaan ayadoo mar walba ay ku xirnaan doonto taasina shakhsiyaadka meesha iman doona uu ordi doona gudoomiyaha baarlamaanka ayaa wuxuu samayn doonaa asxaab iyo galaangal iyo campaign uu samayn doonaa campaignka la samaynaya marka waxay kala bedelaysaa raggii hadda kala safnaa laakiin xukuumaddu mar walba waxay ku dadaali doontaa qof iyada maqla oo ay dhagaha wax ugu sheegto ayay ku dadaali doontaa iyadoo adeegsanaysa hantidii qaranka ummadda hantidii loogu talagalay in wax lagu qabto canshuurtii wadanka ka soo gelaysay ayay waxay keeni doontaa pressure lacageed xildhibaanadu mar walba sidaan ka soo hadalna waxay u samaysan yihiin inay mooshinka ka sameeyaan dhaqaale inay doorashada dhaqaale ka sameeyaan waan ognahay 2017kii wixii dhacay waxaa jiraan xildhibaano qaar aan lacagta kaliya aan fiirinaya qofka shakhsiga is leeyihiin wax buu qabanayaa soo doortay aad iyo aad bay u yeelayeen number wax qaban kara way jiraan fursadda markaan ka faa'iidaysto waxaan rabaa yacni ha jirto in uu qofka kambeynka wada uu iimaan darro intay ku dhacdo uu lacagta bixiyo inuu asaga dhaqaale xumo bixiyo laakiin sheekh bashiir axmed salaad ilaahay khayr ha siiye iyo xildhibaan zakariya waxay ka mid ahaayeen 2017 baraarujintii ama controversialka oo ay aad uga qayb qaateen waxaa ka mid ahaa inay dhahaan laba cuqubaha isku qaadanin inaad laaluush qaadato cuqubo ah iyo inaad afkaagii iyo gacantaadii iyo aqoontaadii aada ugu doorto qof mustaqbalka dalka iyo dadka iyo diinta iyo aayaha iyo jiilka soo socda ku ciyaari doona marka meesha laba waxay isku noqonaysaa cuqubo oo la isku qaato la burburiyey marka kala qaad baa la yidhi hadday suuragal noqoto inaad wax cunto allahaaga uga baq maadaama codka uu sir yahay iyadoo la arkayn warqadaa waxa ku jira waa gudaha lama arkayo adiga qalbigaaga iyo allah kaliya haystaa lacanay ku rid oo alla uga baq qofkii meesha taagan kan kugu dhow aad dhihi doonto waa lagu badbaadaya fursaddaas waxaan uga faa'iidaysanaa waxay tahay marka waxaa meesha ka baxaya fikradda uu walaalkay aaminsan yahay ee ah dhaqaalihii waddankan waxaa lagu isticmaalayaa in wax lagu burburiyo ama lagu takrifalo waayo isbedelka kaliya ee siyaasadda Soomaaliya 27 sano ay jirtay ee hadda aan hayno waxaa ka mid ah dhaqaalihii dalka soo galay hadduu qof civil servant uu yahay ama shaqaale dawladeed uu yahay ee maanta jooga waxay u sheekaystaan markaad dhageysato hadaladooda dad u shaqeeya sida UN ko kale haddaysan 30 bisha markay ku dhamaato haddaysan akoonkooda lacagta ku jirin laakiin lacagahan oo kale la isticmaalayo 2 iyo 1 Cabdullaahi kuma gaarto lacagta taas waxaad ka ogaanaysaa dhaqaalihii dalka soo galay iyo maareyntii dalka soo gashay ma dhaqaalaha marka laga tago dhaqaalaha dalka marka laga tago dhaqaalaha wadanka waa kan hadda aan sheegayno dhaqaale kale ee wadanka soo gala ma laha annaga dhaqaalaha 2 ilbisu naga soo gala airportkaas lacagta yar laga qaado iyo lacagta yar dekada laga qaado dhaqaale kale ee cali uu yaqaan maanta ee dalka soo gala dhaqaalahaas marka wax lagu bixiyo waxay tahay islada airportka iyo waxaan rabaa su'aasha inay noo kala cadaato airportka iyo dekada dhaqaale aan ahayn oo mug leh ee saabsan ee Soomaaliya soo jira hadii ay jirto oo aan hilmaamsanahay waa xasuus aad iyo aad waan ku xasuusinayaa Cabdiraxmaan waxa weeyaan horta arrinka maaliyadda iyo shaqaalaha la siiyo mushaharadkoodii ayaan rabaa inaan wax yar ka ilaahdo Cabdiraxmaan horta dhaqaalaha shaqaalaha wadamada dawladda la siiyo marka ciidamada mushaharkooda waa la bixiyaa dawladda federaalka ahi boqolkiiba 90 boqolkiiba 10 kama bixiso wadamada caalamka bixiyo shaqaalaha uu sheegayo uu leeyahay Cabdiraxmaan waxa la siiyo mushaharkoodii horta waxa la yiraahdaa la shukran cala alwaajib
waa shaqaalihii u shaqaynaya xukuumadda dowladda ummadda Soomaaliyeed waxooda xaq bay u leeyihiin haddaad siisana ammaan kuma lihid mana ahan wax weyn oo laga dhigi karo la yaab waxa la bixiyay shaqaalihii intaas ma ahan shaqada dowladda laga rabay inay ku faanta maantay dhaqaalihii baan bixinay mushaar baan waa minor aan dhamee way ku mahadsan yihiin hadday shaqaalihii siin laakiin waxay ku faani karto oo ay dhihi karto qoladii shalay joogtaba markay waxelaan kulley iyo markay ka masuqmaasuqaanba way bixin jireen laakiin waxaan kuu sheegay shaqadii laga rabay ma ahantaa shaqadii laga rabay waddanku meel buu joogay baaba ah oo ay ugu yimaadeen meesha inay ka raraan oo ay meel wanaagsan geeyaan hal sano iyo bar maxaa tallaabaa oo hore loo qaaday oo nabadgelyadii laga qaaday oo musuqmaasuq in laga qabtay musuqmaasuq heer wuxuu gaaray kii hore uu ka daray sanadkii hore xukuumaddii hore uu ka daray xubin walba oo dowladda ka mid ah inuu musuqmaasuq dhex galay ayuu marayaa hadda heer ra'iisul wasaaruhu muxuu platformka u diyaariyay muxuu musuqmaasuq kula dagaalaya ma isaga ul u wata oo dadka uleynaya garsoorkii iyo ma maqashay xeer ilaalintii ama xeer ilaalihii qaranka oo weligii musuqmaasuq ka hadlay ma maqashay hanti dhowrkii qaranka musuqmaasuq ka hadlay xagee dadka xagee lagu ciqaabaya musuqmaasuq lagu qabto ra'iisul wasaaruhu ma isaga ah qofkii maamulayo qabanay haddaad ka warqabtaan 2 bilood masabilka hore waxa soo saartay hay-adda qaramada midoobe u qaabilsan waxay ku tilmaantay musuqmaasuqu sanadkii hore meeshuu u joogay nambar buu hoos kaga sii dhac marka ra'iisul wasaaruhu waxaan dhihi karnaa hadalka uu leeyahay waa afgobaadsi marka xukuumaddu musuqmaasuq lama ayna dagaalin ammaankii waxba kama ayna qaban waa minor way samaysay laakiin waa waxyaabo yaryar oo qof ka mid ah xukuumadda ama wasiirada uu sameeyay waxaad ogtihiin dhibaatadii maamul goboleedyada iyo dowladda ka dhex taagan heer ay maamul goboleedyada samaysteen isbahays ayaga u gooniye oo ay yiraahdeen afgooyana inaga maamulna balcadna inaga maamulna dowladda dhex xagee maamusha dimuqraadiyad kama mid maaha in la madax banaaneeyo inaan la xukumin maya sidaa maanta waxa dowladda laga rabay sida dimuqraadiyad federaalkii sidaa ma sidaa ma aan ka baxo Cabdiraxmaan aan ka baxo marka xukuumaddu waxyaabihii shaqooyinkii waaweynaa intay ka timid muqdisho waxaa la rabay maantay gees inuu waddanku nabad ahaado inta badan ama 100% maadaama hal sano iyo bar ay marayso hal sano iyo barka kaleeto markii ay gaarto ama 2 sano ay dhamaato xukuumaddu waxay u diyaar garoobi doontaa ama madaxweynuhu u diyaar garoobi doonaan inay ka fakaraan sidii doorasho ugu soo noqon lahayn ayagoo jooga intay hadda joogaan xukuumaddu marka dhaqaale ay bixisay mushaarkii bay siisay waxyaabaha waa waxyaabo yar yar wixii weyn waaweynaa ee laga filayay ma ahan markaan u soo noqdo wuxuu sheegay Cabdiraxmaan VIT hadaytu ka dhawaajiyo canshuurta VIT macnaheedu waxa weeyaan canshuurta gadista alaabaha waxa lagu tala galay marka alaabta la gado koobka shaaha markaan gato in la iga qaado canshuurta la rabo in dekada VIT la rabo dekada Muqdisho in looga qaado dadka ganacsatada dawladdu ismalihi waxyaabo ay ku faani karto canshuur baan qaadnay dhaqaalan soo kordhinay ma ahan waa nuuc kamida isbaarada bar ayaa lagu tilmaamay laakiin dhaqaale fiican ay soo saartay sida uu sheegay wasiirka maaliyadda oo kale wasiirka maaliyadda sida uu sheegay waa shaqeynaya wasiirka maaliyadda waa wasiir fiican marka lacagta soo xarooto ma waxaad leedahay adiga waa la masuqmaasuq aad loo masuqmaasuq waa masuqmaasuq Cabdiraxmaan maxaa ugu doontaa aad loo masuqmaasuq taas waxaan ugu degno waxay tahay aniga yani mihi taageero u jalbaysan dawladda hadda taagan laakiin waxaan ahay nin dhalinyaro ah wax bartay ee ka hadlaya waaqicigii hore jiray iyo waaqiciga hadda socda waxyaabaha ay ku kala duwan yihiin dawladihii hore ee na soo dhaafay ammaan iyo sharaf bay mudan yihiin waxyaabo badan oo waxaa jira ay qabteen ay ku guuleysteen waayo haddaysan qabteen oo aysan ku guuleysteen dalka intaa ma soo mari lahayn haddana waxaa jirto waxyaabo qaar ayaga ay ku guuldareysteen waxyaabihii qaar ayaga ay ku guuldareysteen oo ay noqon weysay in ay qabtaan baa waxay u suura gashay inay dawladdan qabato waxyaabahaasana isku haysanaa iyo isbeddelka horumarka dalka ka dhacay waxaa ka mid ah canshuurahaas la qaadayo haddii la musuqmaasuqo lacagtan oo aad arkaysid fiiri maamul goboleed walba waxaa la siiyaa $150,000 bil walba inta loogu keenaa su-aal waaye isweydiin bay u baahan tahay maamul goboleed walbaba su-aasha labaad waxay tahay lacagta maamul goboleedyada la siinayo waa kow sidaas ay tahayna maamul goboleedkaasi raalli kuma aha dhaqaalaha soo gala si federal state ah in loo mideeyo
caasimadda waxa looga qaaday ama central state-ka wax looga qaadayo shaqadan sida xukuumadda dadka dawladda ay qabato madaxda canshuurtii la qaaday waxay faa'iido u noqotay in askartii niyadda loogu dhiso maalmaha xorriyadda dalka uu leeyahay meelihii lagu dabaaldegayay inay noqoto in ayaga loogu deeqo loogu qaybiyo waxyaabo sadaqo noqon kara ee la taaban karo saddex aan dhamaystiro saddex waxay noqotay in ma garanaysaa canshuurtii la qaaday in ay suurogeliso shaqaalihii waddanka ka shaqaynayay inuu ku farxo inuu dowladdiisii u adeego adigoo maanta cabdulaahiya oo shaqaalada dowladeeda iyo cali oo shaqaale UN ah hadduu kaa jismi qurxoon yahay iyo hadduu kaa dhaqaale qurxoon yahay adinka waddankiina hooyo ku nool ma u malaynaysaa subaxii dambe inaad u hagar baxdid usoo labisatid inaad dalkaagii hooyo shaqo u qabatid mushaarka dowladda wax yar aan adoo weydiin doono su'aasha kii ku laabto Cabdiraxmaan hadalkiisa waxaan fahmayaa haddii uu yahay siduu u leeyahay dowladdu waxay u nooshahay canshuurtan u qaadaysaa madaxda sare wasiirada iyo inta u shaqeysay shaqaalaha inay wax ku dheefsadaan ayagu canshuurta la qaadayo canshuurtan aan isweydiinayaa laga qaadaa ma waxa laga qaadaa dadweynaha masaakiinta ah ilaa daadsan tuulooyinka ilaa daafaha magaalada daadsan hadda meel kale canshuur laga qaadaa maba ogi mase waxa laga qaadaa nimanka wasiirada waxay ka timaadaa ganacsatada guryaha dukaanleyda hooyooyinka yaanyada gadaya dadka maskiinka canshuurta ka timaadaa aan isweydiinay maxaa kaga soo noqda dadka canshuurtii laga qaaday ma jira maanta iskuul u furan oo ay dadkaasi ilmahooda geysan karaan lacag la'aan oo ay dawladdu gacanta ku hayso waa may meel goob caafimaad ay tagi karaan ma jirta oo ay cunugii kusoo daaweysan karaan lacag la'aana oo ay dawladdu gacan ku hayso ma jirta waa may ma jirta inta laga mideynayo okay hal sano iyo bar shaqada xataa bilow noqon weysay meesha anigu lagu gaaraya ma garan karo hal sano iyo bar shaqada xataa iskuul la furi waayey dawladdu horaaba waxay furtay go to school iskuulla la yiraahdo oo dib loo baabiyo markii dambe oo ilmuhu lacag la'aan ku aadi jireen canshuurtii marka waxay muhiimad u tahay canshuurta la iga qaado inaan helo wax iiga soo noqdo waddo la iguma dhiso iskuul ma helo caafimaad ma helo biyo ma helo biyaha waa lacag laga bixiya dadku koronto ma helo canshuurtan dawladdu xaggee geysaa ay dadka ka qaado waa su-aashiisa weydiinta xaqiiqda markaan istusino waxaa la yidhaahdaa maantay waxaad ka roon tahay shalay waxaad soo martay waxaad hami u haysaa waxaad bari gaarayso inaan annaga horta gaarno cali waxaan rabaa canshuurta jawaabta aan ku siiyo su-aasha waa i weydiisay iga sugo jawaabta waxaan rabaa adoon ka bixin maya wax yar waxaan rabaa horta meeshaan joognay maya okay waan ku cadaynaya shalay waxaan joogin dowladihii naga dambeeyey ee soo maray Soomaaliya 2 sano in 2 bilood canshuur laga bixiyo canshuur mushaar 2 sano in 2 bilood laga bixiyo mushaar okay 2 sano meeqa bilood waay 24 bilood waay 24 bilood haddii 3 bilood laga bixiyo meeqa soo hartay 22 bilood kala aaw isweydiin u baahan tahay iyo halka sano iyo bar dawladda hadda ay taagan tahay oo aysan xataa shanta bisha aysan gaarsiin in mushaarkiisa qofka la mushaarka la isma weydiinayo sababta la isweydiinayo waxay tahay su'aasha la isweydiinayo adeegga dadweynaha canshuurta halkay u laabato canshuurtii la qaaday adeegga dadweynaha wuxuu imaan karaa in la iskaabo oo la iska helo marka koowaad in shacabka ay ayaga baahi u qabaan dawladda in shacabka ayaga ay soo bandhigaan sida ay ula shaqayn lahaayeen loola dagaalami lahaa argagixisada oo ay ayagu shacabka soo bandhigayso dawladda keenayso shacabka soo bandhigayso shacabka dawladda la shaqaynayso dawladda programka laga rabo ma laga dawladda inay dhisto siyaasadda dawladda sababta aan ku sheegaya adi maanta cali hadda shacabta waddankan aan ku noolahay waddankan waxaan ognahay inuu leeyahay shacbiyad rasmi ah Ethiopia waan ognahay xaaladeedii marxaladeeda meesha laakiin anigu ma ognahay in shacab program ku diyaariyo oo dawladda u geeyo oo ila saan laakiin waxaan ognahay dawladdu inay u keento qaabka u geeyaan ku sheegay qaabka u geeyaan ku sheegay shacabka waa shacabkii ayaga intay lacago iyo dhaqaale inta iska aruuriyeen ku taageereen qabiil in ay maamul goboleed u istaagaan shacabka waa shacabkii lacagta ku bixiyay calalada calan ma dhahayo aniga
calalada la kala sito ee waa qorshihii la rabay inay dowladdu wax ka bedesho taas shaqadii dowladda ilaa hadda meesha dhegeyso ma aha shaqadii dowladda shacabku inuu u istaago fiiri shacabka ma aha inuu u istaago ama dhaqaalaha uu ku bixiyo mustaqbalka Soomaaliyeed iyo calanka Soomaaliyeed iyo jiritaanka Soomaaliyeed in la burburiyo ma aha shacabka inuu istaago shacabka waa inuu u istaagaa dhismaha iyo qaranka Soomaaliyeed laakiin dowladda looga baahan inay baraarujin samayso arrintaas inay baraarujin samayso la rabo dowladda baraarujintii haddii ay soo bandhigto marka koowaad waxa loo baahan yahay laakiin ilaa weli wacyigelin lagama hayo shacabkii wacyigelin inta waxay tahay fiiri shaqadii dowladda inuu shacabku qabto waajiba markaa qaangaarto salaada goormay kugu waajibtaa waa markaa qaangaarto waa markaa xaaladda iyo marxaladda aad ku jirtid ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ku leeyahay laakiin tan qaangaar kuma xirno shacab aad ka dhaadhiciso waxaa jiro haddii mararka qaarkood salaada ay ku ansaxayso adoo ordaya inaad dukatid marxaladda hadda la taagan yahay waa marxalad dadka ku shaqeeya inaad awoodooda aad raadisaa horta marka koowaad dadka ku shaqeeya inaad meelaysaa masruufkoodii iyo noloshoodii inaad ka shaqaysaa intii markaa gacanta kusoo dhigto waa inaad raadisaa inaad dhiirigelisaa dadkii ku dagaalami lahaa waa inaad maskaxda ka qabsataa waayo waan ognahay annaga dhulalka ay haystaan dadkan argagixisada ah dhulalka ay haystaan dadkan argagixisada ah waan ognahay markii ay dhulalkaa qabsadaan qaabkay kula dhaqmaan haddoo dowladda ay jirto oo ay dowladda haysato waan ognahay qaabka ay dadkaa kula dhaqmaan qaabka ayaga ay ula shaqeeyaanna waan la soconnaa ma fahmaysaa laakiin shacabkii in dowladda ay soo jidataa la rabaa maadaama intayna ka cabsan oo kale shacabkii in dowladda ka cabsanaa la rabaa ay soo jidataan maanta aroosto walaalow haddaad maanta aroosto in cunug lagu dhalo cadaalad maaha tusaalooyinkaasi waa tusaalooyin ka baxsan may xaqiiqdii qaybtii ugu dambeeya barnaamijkan soo gaarnay gudoomiyaha hadda la filayo in la doorto madaxweynuhu wuxuu ku baaqay in 15 maalin gudahood lagu soo doorto baarlamaanka ugu yeeray inay ku soo doortaan macquul ma tahay oday mu kula tahay cali ahaan in 15 maalin gudahood lagu soo dooran karo aad iyo aad madaxweynaha ma ahe waa dastuurka sidoo qabo sharciga uu qabo baarlamaanku markuu gudoomiye meesha ka baxo 15 maalmood gudahood in lagu soo doorto marka baarlamaankii haddii ay jirto xalaalnimo waa lagu soo dooran karaa gudoomiye cusub 15 maalmood gudahood waliba ka hor lagu soo dooran karaa waxaan aaminsanahay gudoomiyihii la dooran lahaa inuu meel sii yaalo iska dhaaf 10 maalmood 5 maalmood gudahood inay keeni karaan qoladii gadaal ka riixaysa gudoomiyaha horena meesha ka saartay laakiin weli kalsoonidii ma haystaan weli ma haystaan laakiin waxay samayn doonaan inay galaangal badan sameeyaan hadda waxa la ii soo sheegay hoteelada magaalada Muqdisho inay aad iyo aad mashquul u yihiin xildhibaanadii ay kala fadhiyaan campaign-kii uu bilowday already lacagihii la qaybinayo marka hadiiba mar gudoomiyihii hore uu meesha ka baxay oo dhibka ugu badnaa uu taa ka haystay ma u malaynayo inay waqti dheer ku qaadanayso inay gudoomiye cusub soo magacaaban Cabdiraxmaan adiga maxaa ka qabtaa arrintaas dalka marxaladuu maraya markii la fiiriyo waa baahi jirto waa marxalad loo baahan yahay in la dedejiyo in si masiiriya loo helo in gudoomiyaha qaabka ugu wanaagsan loo soo xulo si dhaqsi ah waqtiga lagu jira iyadoo la eegayo looga faa'iideysanayo marka waan leeyahay weliba waxaan rajo qabaa oo wanaagsan ninkan hadda positionka ka baxay nin u qalma at least inaan helno ama nin ka fiican aad waa mahadsantihiin qaybtii su-aasha ugu dambaysa idin weydiinay waxay tahay haddii gudoomiyahan lasoo doorto qaab sidee ah ayay isula shaqeyn karaan dowladda federaalka iyo baarlamaanka si ay isula dhammaysato dowladda iyo baarlamaanka 40 sano aad iyo aad waa su-aal ugu muhiimsan su-aalihii aan dhan ka hadlaynay gudoomiyaha cusubi sida maladayga uu yahay wuxuu la shaqeyn doonaa oo la dhammaysan doonaa xukuumadda iyo haddaan wax kaleeto oo wax walba waa iska dhacaan siyaasadda gudaheeda waxyaabo la yaab la aysan dhicinin waanan hadda aanan malaynin waxaan filaynaa inuu la dhammaysto sababtan sidaas u leeyahayna waxay tahay laakiin su-aasha kale meesha ka dhalan horta shaqo ma la qaban doonaa shaqo baarlamaanka shaqadii loogu talagalay ma la qaban doonaa haddii la keeno gudoomiye cusub ma filayo shaqada sidii loogu talagalay oo baarlamaan uu ahaan jiray oo baarlamaan uu shaqayn jiray inuu loo qaban doono because waxaan aaminsanahay inay isku dhinac mari doonaan xukuumaddii iyo hoggaanka baarlamaan marka ugu dambeysana waxaa imaan doonta hal iyo labada sano halkii barka sano ugu dambeysa waxaa imaan doonta kaliya inuu functional noqdo gudoomiyaha baarlamaanka hadda la keeni doona baarlamaanka kalena
baarlamaanka intiisa kalena la iska xiri doono marka waxaan aaminsanahay gudoomiye noocaas u shaqeeya oo xukuumadda la dhamaysta inuu iman doono marka waa saadaashii waa sidaas cabdiraxmaan macquul ma tahay in gudoomiyaha cusub ay isla dhamaysan doonaan xukuumadda noqdo rabitaanka iyo siyaasadda iyo isla xisaabtanka iyo dalka meel buu u socdaa meeshuu u socdo nin aanan indheer garad ahayn oo indha ku garaadle ahayn ee indheer garad ah hadduu yahay waxaan isdhihi karaa way isfahmayaan way wada shaqayn doonaan laakiin haddii ay noqoto inuu indha ku garaadle uu noqdo waxaa adkaanaysa inuu la qabsado ama uu la shaqeeyo هذا هو مهندسين ورئيس جاركان ثانك يو guud ahaan daawadayaal intaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkii gaarka aanu ku falanqeynaynay xaaladda siyaasadeed ee iminka ka taagan gudaha dalka Soomaaliya gaar ahaan iscasilaadii gudoomiyihii baarlamaanka Soomaaliya Professor Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari maxaa laga filan karaa gudoomiyaha cusub ee la filayo in la soo doorto ayaanu ku falanqeynay waxaana igala qayb galayay علي عبدي محمد oo loo yaqaano geele iyo sidoo kale Cabdiraxmaan Nuur Cali oo isna loo yaqaano si naxariis leh waxay falanqeeyaan siyaasadda Soomaaliya guud ahaan intaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa dhanka farsamada iyo kaamiradu wuxuu ahaa Naasir Macallim anigu Cabdullaahi Ahmed Cali idin la socodsiinayay waraysiguna wuxuu idin kaaga imaanay stuudiyaha Somali Cable ee magaalada Nairobi dib intaan u kulmi doono waraysi kan lamida nabadgeliyo